sirdoonkii ugu badnaa ayaa gudaha u soo galay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya dowladda federaalkana waxa ay la yaaban tahay guud ahaanba qaar ka mid ah wadamada carbeed oo ku loolamaya saaxada sirdoonka soomaaliya kenyana waxa ay u taaglaadahay axmed madoobe waxaynu ku fashilantay guud ahaanba xal u helidda khilaafka ka dhex ogan axmed madoobe iyo sidoo kale dowladda dhexe ee soomaaliya soo dhow daawade hadday tahay markaaga kugu horeysay ee aad soo booqato halkan subscribe noo saaran un like gare muuqaalkan waad ku mahadsan tahay soo booqashadaada aanu ku horumarno qaar ka mid ah sirdoonka wadamada carbeed ayaa waxa ay ku loolamayaan gudaha saaxada siyaasadda soomaaliya tani ayaa timid ka gadaal markii wadamada isu taga imaraadka carabta sacuudiga masar iyo suudaan ay ku loolamayaan saaxada siyaasadda soomaaliya gaar ahaan xagga sirdoonka toddobaadkan gudihiisa waxaa soo booqday magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya 3 wadan oo isu taga imaraadka uu ku jiro oo ay sirdoonadoodu soo gaareen gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya haddaba maxay tahay ujeedku ay ka damacsan yihiin inay yimaadaan magaalada muqdisho maxay doonayaan maxay tahay xogaha ay ka doonayaan dowladda federaalka soomaaliya ilahaas ayay si weyn u falanqaynayeen maalmihii ugu dambeeyey dadka wax ka faallaya arrimaha siyaasadda soomaaliya waxaa la tilmaamayaa in ilahan sirdoon ay si weyn u doondoonayaan xogaha dowladda federaalka soomaaliya ugu horreyntii haddii aynu ku horumarno dowladda suudaan sarkaal ka socda oo hogaaminaya guud ahaanba waaxda sirdoonka ee dowladda waddankaasi suudaan ayaa yimid gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana kulan uu la qaatay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo taliyaha sirdoonka soomaaliya waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba ay ka wada hadleen sidii ay isaga kaashan lahaayeen arrimaha sirdoonka hase ahaatee dowladda federaalku si rasmi ah uma shaacinin waxyaabaha ay ka wada hadleen dhinacyadu waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba ay ka wada hadleen arrimo sirdoon oo xasaasi ah oo ku geedaaman isdhaafsiga xogaha sirdoon ee labada dowladood ee suudaan iyo sidoo kale dowladda soomaaliya labada dowladood waxa ay wajahayaan burbur xoogan iyo sidoo kale dagaal uga soconaya dhanka iyo dowladda waddankaasi isu taga imaraadka carabta oo si isku midihii u saameeyey ka gadaal markii dowladda waddankaasi suudaan dhowaan ay weerar ay hogaaminayaan kooxda ka dagaalanta gudaha waddankaasi ee RSF oo ay maalgelinayso dowladda waddankaasi isu taga imaraadka carabta ay ka geysteen qaybo badan oo ka mid yihiin gudaha waddankaasi gaar ahaan magaalada caasimaddu waa waddankaasi ee khartuum waxaana la tilmaamayaa in hadda xiisadu ay wejiyo kala duwan yeelanayso labada dowladoodna waxaa la tilmaamayaa hadda in ay u xulufaysanayaan dowladda waddankaasi isu taga imaraadka carabta iyadoo ay halkaasi wax marayaan haddana waxaa yimid gudaha magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sarkaal sare oo hogaaminaya waaxda sirdoonka dowladda waddankaasi isu taga imaraadka carabta waxaa la tilmaamayaa qorshaha uu yimid magaalada muqdisho inay tahay inuu kala furfuro guud ahaanba filooyinkii ay xirxireen labada sirdoon ee soomaaliya iyo sidoo kale suudaan kuwaasi oo dagaal isku midihii uu ku wado dowladda waddankaasi isu taga imaraadka carabta waxaa la tilmaamayaa in ay la kulmeen taliyaha sirdoonka soomaaliya mahad maxamed salaad iyo sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda xamse cabdi bare saraakiishan ka socota dowladda isu taga imaraadka carabta waxay kala hadleen sidii ay ku heli lahaayeen xogaha sirdoon ee gudaha soomaaliya waxaana la tilmaamayaa inay usoo bandhigeen dowladda soomaaliya in ay ka samaystaan xarun wakiil u ah sirdoonka dowladda isu taga imaraadka carabta gudaha xarunta habarqadiijo ee taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliya waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi uu ka biyadiiday ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo ay si weyn isu diidan yihiin dowladda waddankaasi isu taga imaraadka carabta waxaana la tilmaamayaa in imaraadku si weyn uu doonayay in wax badan uu ku ogaado ilaha sirdoon ee dowladda soomaaliya waxaana wararka la helayo ay tilmaamayaan in dowladdu tallaabadaasi ay ka biyadiiday hore waxa uu yimid magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya sidaasi la mid ah sarkaal sare oo hogaaminaya waaxda sirdoonka dowladda waddankaasi masar kaasi oo si weyn kulamo ula qaatay madaxda ugu sarreysa dalka taliyaha sirdoonka madaxweynaha iyo sidoo kale saraakiil kale ayuu kula kulmay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxayna isla meel dhigeen qorshaha lagu keenayo gudaha caasimadda muqdisho ciidamo ka socda gudaha waddankaasi masar kuwaasi oo ka qayb qaadanaya howlgalka dhowaan galka ee soomaaliya ka curtay ee EUSOM waxaana la tilmaamayaa in saraakiishan sidoo kale ay tageen magaalada beled xawo si ay usoo indheeyaan guud ahaanba fariisinka ugu muhiimsan ee halkaasi ay ka samaysanayaan ciidamada dowladda waddankaasi masaarida oo toddobaadyada soo aadan la filayo inay soo gaaraan gudaha soomaaliya gaar ahaan gobolkaasi gedo waxaana la tilmaamayaa
in ay xiisada wejiyo kala duwan yeelanayso dhinacyaduna ay ku soo biirayaan. ilahan sirdoon ee ka kala socda 4 wadan oo ka mid ah wadamada Carbeed waxa ay si weyn uga loolamayaan saaxada sirdoon ee Soomaaliya, waxaana la tilmaamayaa tani inay timid ka gadaal markii taliyaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad uu la xirtay wadamada Suudaan iyo Masar oo ay horeba saaxiibo dhow u ahaayeen. ana sidoo kale Mahad Salaad horey loola xiriirinayay inuu yahay xubin sirdoon oo ka socota dowladda wadankaasi Masaarida, walow aanan si rasmi ah loo xaqiijin karayn, isla markaana ila kale oo ku waramaya in guud ahaanba tallaabadaasi ay sax tahay. maalmihii ugu dambeeyeyna siyaabooyin kala duwan ayay u martigelinaysa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xubno sirdoon oo ku soo qulqulayay. waxaa la tilmaamayaa in sarkaalkan ka socda dowladda wadankaasi Suudaan uu ashtaka ka ahaa maamul goboleedka Puntland oo la tilmaamayo in xiriir dhow uu la leeyahay dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta ka gadaal markii dowladda wadankaasi Isutaga Imaaraadka Carabta ay raadeer ku rakibeen gudaha magaalada Boosaaso gaar ahaan garoonka. waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay sahashay in diyaarada ay ku soo degaan halkaas isla markaana laga hago, waxaana ay u adeegsanaysa guud ahaanba in ay ku weerarto gudaha wadankaasi Suudaan si ay u taageerto kooxda halkaasi ka dagaalanta ee RSF ee ay garabka siiso dowladda wadankaasi Isutaga Imaaraadka Carabta. waxaa la tilmaamayaa in Suudaan ay uga ashtakootay dowladda federaalka Soomaaliya Puntland in ay joojiso dhaqdhaqaaqyada laga soo abaabulayo deegaanadeeda, isla markaana lagu waxyeeleynayo shacabka muslimkii ay ku dhaqan gudaha wadankaasi Suudaan. waxaana la tilmaamayaa in tallaabadaasi ay sababtay inuu soo gaaro gudaha caasimadda Muqdisho taliyaha sirdoonka ee dowladda wadankaasi Suudaan oo toddobaadkan ku sugnaa gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. ilahan sirdoon ee ku loolamaya gudaha caasimadda Muqdisho ayaa la tilmaamayaa in dhammaantood ay yihiin kuba xogdoon ah, isla markaana siyaabooyin kala duwan ila sirdoon uga doonaya gudaha Soomaaliya, waana tallaabo culus oo ay markaasi si weyn wax uga dhimi karta guud ahaanba madax banaanida dhuleed iyo qarannimada Soomaaliya. lama sooga tallaabooyinkan iyo dhaqdhaqaaqyadan sirdoon iyo halka ay saldhigan doonaan. wararkeena ayaa daawanaysaan markana dowladda wadankaasi Kenya ayaa waxaa la tilmaamayaa inay ku fashilantay xal u helidda khilaafka ka dhex oogan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dowlad goboleedka Jubbaland. waxaa la tilmaamayaa tani inay timid ka gadaal markii xukuumadda Nairobi ay maalmihii ugu dambeeyay ay garwadeen ka ahayd heshiisiin la kala dhex dhigayo Madoobe iyo sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud oo qadka telefoonka ay u soo gelisay dowladda wadankaasi Kenya. waxaa la tilmaamayaa in William Samoei Ruto madaxweynaha wadankaasi Kenya uu ku fashilmay qorshaha guud ahaanba lagu xalinayo khilaafka ka dhex oogan dhinacyada ku dagaalamaya gobolka Gedo. waxaana la tilmaamayaa in guud ahaanba hadda uu diyaarinayo tallaabooyin culus oo uu ka qaadayo Madoobaha ka madax adeegay qorshaha ay doonayso dowladda wadankaasi Kenya. waxaana la tilmaamayaa hadda inay diyaarinayaan qorshe ciidamada Jubbaland ee ku sugan gudaha magaalada Mandheera looga saarayo halkaasi, isla markaana xadka looga tallaabinayo. sidoo kale saraakiil uu hogaaminayay Maxamuud Sayid Aadan oo degnaa hotel ku yaala gudaha magaalada Mandheera ayaa lagu amray in guud ahaanba ay isaga baxaan. waana tallaabo culus oo u muuqanaysa in xiriirka Jubbaland iyo sidoo kale dowladda wadankaasi Kenya guud ahaanba uu xumaaday. Madoobe waxaa laga dhaadhicin waayay 2 qodob oo ay si weyn u doonayso dowladda Soomaaliya, waana in guud ahaanba uu ka tanaasulo xilka iyo sidoo kale inuu meesha ka saaro qodob waliba uu markaasi ku doonayo in markaasi uu dood uga dhigto qorshaha uu muddo xileedka ku sii joogayo. waxaana la tilmaamayaa in Madoobe qudhiisu uu soo jeediyay 2 qodob kuwaasi haddii aanan la aqbali doonin uusan miiska wada hadalka imaanayn. waxaana ka mid ah 2daasi qodob in guud ahaanba meesha laga saaro muddo xileedkiisa, isla markaana uu yahay sharci ayna aqoonsato dowladda federaalka Soomaaliya doorashadii ka dhacday Kismaayo. waxaana la tilmaamayaa in sidoo kale Madoobe uu ka biyadiiday in doorashada dib looga laabto, isla markaana nooca doorasho ee dowladdu ay shaacisay aysan waxba ka jirin. 2daasi qodob madaxweynuhu waxaa la tilmaamayaa inuu ka biyadiiday dhankiisa. mucaaradkana ayaa la tilmaamayaa in iyaguna ay u janjeeraan dhankayo Axmed Maxamed Islaam Madoobe. dhinacyada ayaana la tilmaamayaa inay qoorta isugu jiraan, isla markaana ay si weyn isugu hayaan gudaha gobolkaasi Gedo. ila dhaxalgal ah oo gobolka ku sugan waa barigii hore waxa ay soo dusanayeen in ciidamada Jubbaland oo ka soo dhaqaaqay gudaha magaalada Mandheera, isla markaana fulinaya awaamirta dowladda Kenya inay u soo dhaqaaqeen dhanka iyo balad xawo, isla markaana xadbeneedka lagu arkayay waa barigii hore ee Saaka. lama yaqaano halka ay fariisimo ka dhigteen, balse ila dhaxalgal ayaa tilmaamaya in tuuladii dhowaan laga qabsanayay ay guud ahaanba ku laabteen. waa tuulo amiin
waxaana wararka la helayo ay tilmaamayaan in Jubbaland ay qorsheynayso in halkaasi ay kasoo abaabusho weerar kale oo ay ku wajahayso ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay dagaal kula jiray. dhaqdhaqaaqyada wajiyo kala duwan ay yeelanayaan Masaarida iyo Etoobiyana waxa ay si weyn uga loolamayaan gobolkaasi Gedo, waxaana la tilmaamayaa dowladdu inay doorbidayso dowladda wadankaasi Masaarida kuwaasi oo iyaga isku haya biyo-xireenka webiga Nile oo wejigiisa afraad ay buuxinayso dowladda Etoobiya, waxaana la tilmaamayaa hadda xiisada u dhaxaysa labada dowladood inay tahay meeshii ugu sareysay oo ay gaartaabid, waxaana la tilmaamayaa hadda inay isku haystaan gudaha Soomaaliya gaar ahaan gobolka Gedo. Madoobe waxa uu jiraa dhanka Etoobiya halka dowladda federaalkuna ay wadato dhanka iyo Masaarida, waxaana maangal lahayn gobolku ay ku diriraan dowladaha Masar iyo sidoo kale Etoobiya oo ay kala taageerayaan labada dhinacba. Jubbaland iyo dowladda dhexe ee Soomaaliya lama soo oga xiisada ka dhexaloosan iyo halka ay saldhigan doonto.